taagan yahay yafhamu qowli lictiqaadin waahiq wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala qof walba inta shayga uu caqiideeyo oo uu caqiidaysan yahay shaygan in ilaahay u barakaynayo oo ilaahay uu ku anfacayo shaygan ayaa ilaahayna dallacsiiya wuxuu yidhi sheekha haddaadan shayga caqiide u lahayn kuma nafcinaysid adiga xataa qur-aankaba allah ka dhigo ilaahay qur-aanka markuu ka hadlayo muxuu leeyahy wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa waraxmat lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون القرآن كي إلهي كهذا جل جلاله إلهي القرآن مركو كهذا النفع عيسى هي فائدوينك هي بركاتك القرآن كو حنبارسينها إلهي محور جل جلاله وننزل من القرآن ما هو شفاء قرآن كو حنسو دجينا عافمات caafimaadaan usoo dejiye waraxmat lilmu'miniin mu'miniintana wuxuu u yahay naxariis laakiin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara laakiin qofku hadduu qur-aanka uusan aaminsanayn khasaaro unbuu qur-aanku u ziyaadin waidaa maa unzilat suuraة faminhum man yaquulu ayukum zaadatu haadihi iimaana munaafiqiinta waxay dhihi jireen markii suurad la soo dejiyo war suuraddan yaa hadda wax ka faa'iidaystay yay iimaan u ziyaadisay ilaa ma aaminsana qur-aankii qur-aankii barakaadkiisa iyo nafaxaadkiisa ma aaminsana ayukum zaadatu haadihi iimaana ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi dadka mu'miniinta ah qur-aanku wuxuu u ziyaadiyaa iimaan waana ku bishaaraystaa wa ama aladiina fii quluubihim marad laakiin dadka qalbiga ka jiran fazaadatum rijsan ilaa rijsihim qur-aanka iyo aayaduhu waxay u ziyaadinayaan xumaatadoodii hore ay xumaan ugu ziyaadinayaan wamaatuu wahum kaafiruun iyagoona su-ul khaatimay ku dhimanayaan iyagoo gaalo ah maadaama qur-aanka aysan ku nafcinayn marka waxaa weeye waa sheekhu sida uu sheegayo shaygu si kastuu qaali u yahay wuxuu u baahan yahay qalbi nadiifa si kastuu qaali u yahay qalbi nadiifa ayuu u baahan yahay hadda ka hor waxaa la yidhi haweeney wadaadii aad maaragtahay qur-aankiisa ilaahay u aqbalo ay deris la ahayd meeshuu tuu ku yidhaaho ilaahay aqbalayo ay deris la ahaan jirta markii dambe islaantii waxaa la yidhi gabadheedii tahliil usoo dhiibtay waxay tiri biyahan u gee sheekhu ha igu soo tufo qur-aan ha igu soo aqriyo gabadhii marka sheekhi waa ka xishootay sheekhaasi weyn anigu ma qaabili karo ma hor istaagi karo waa ka xishootayo cabaari meel inta tahliishii kula daado la taagneed biyihii ay hooyadii u celisay tiri waa kuu soo tufay wadaadkii ho ila wadaadkii ka xishootay iyaduna uma tegin wadaadka hooyadii xusnu اlictiqaad barakada qur'aanka iyo nafaxaadkii qur-aanka meesha kuugu jira iyo tuftii wadaadka islada ictiqaadkaas iyo niyadaas wanaagsan isaga cabto ilaa iyaduna dhexay ka soo laabatay waa loo tufayba ilaahay waa caafiye subxaanaه wa tacaala fog hooyada waa caafimaad mar kale wadaadkii hooyada intay meel ku aragtay waxay tihi war sheekhu khayr allah ku sii qur-aankaagi waa ku caafimaad adii soo tuftay xaggee isku aragnay oo maalin hible biyii laguma keenin miya tahliishii ima soo tufin miya maalin hible maya la ima keenin laakiin ictiqaadkaagii wanaagsana ayaa ilaahay kugu anfacay marka xusnu lictiqaadka cajiib xusnu ictiqaadka cajiib fanasأlu اlmanaana an yujiirana min الriyaa mudaacifan ujuurana fanasأlu waxaan su-aalanaahu yihi sheekhu almanaana allihii galladaysiga badnaa an yujiiranaa inuu naga badbaadiyo min الriyaa istustus ilaahay uu naga badbaadiyo mudaacifan xaal uu yahay ilaahay mid noo laalaabay ujuuranaa ajiradeenna noo laalaabay nasأlu waxaan su-aalanaa almanaana allihii galladda badnaa ay kahiira alincaam galladda waa yacni incaam nicmayn allihii nicmaynta badnaayoo galladda badnaa waxaan weydiisanaynaa an yujiiranaa ilaahay inuu naga badbaadiyo min الriyaa istustus ilaahay uu naga badbaadiyo mudaacifan xaal ilaahay uu laalaabay ujuurana ajiradeenna ilaahay uu noo laalaabay sheekhu wuxuu ilaahay ka magan galay الriyaa istustuska liأnna الriyaa yuxbid الcamal maxaa yeeley istutusku camalka dhan uu baabi'iya camalka dhan
ayuu baabin waana sifa min sifaati almunaafiqiin tilmaamaha munaafiqiinta ka mid ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila waidaa qaamuu ila asalaat munaafiqiintu markay salaada iyo cibaadada u kacayaan qaamuu kusaala ayagoo wehsanayay cibaadada aadayaan yuraa'uuna annaas dadkana istustusay walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila xuska ilaahayna waa ku yaryahay munaafiqiintu marka munaafiqiintu waxaa weeye الرياء وصفة من صفات المنافقين أعاذنا الله منها إلهي نقبل بهذه سبحانه وتعالى ولذلك مرك الشيخ إلهي وكم قالوا وحويري فنسأله عن سؤالنا المنان